روائدين سلام أصحابتا قلبتو حفلقينينا عيارهي بريمير ليج سيبا عيارتا جلسي عيارتا مانشستر سيتي labadaas ciyaarood oo hadda soo dhamaaday nimankii Liverpool ahaane hadda muuqaalka aad duubahayo Cambiye ee mareen ma garatay oo ciyaartooda 6 iyo bari soo galeysay galabnimo Cambiye hadda mareen waliba hal iyo eber ku mareen Saalaha goolka dhaliyay 13 daqiiqo nimankii Chelsea ah horta hambal yaa leenahay maanta waa dadaaleen nimanka ma garatay oo ninkii horta lambaad ahay guuldarooyinkiisa 10 oo ka bartay galabta markaa fiirsi kubadiisa waayo waxaa laga badiyay 6 ciyaarood oo tiimka oo hogaaminayay ninka lambaada galabta shaxda ku soo galay fiirsid ninkii Maduki iyo Mudriki iyo Havertz ku soo bilaabay weerarka ma garatay weerarkaas adiga weerar aad u halis badan horta ma ahayn ninkan la yiraahdo Gallagher gool madax xalay oo N'Golo Kante cross oo soo saaray horta nimanka markaa fiirsid weeryahanadooda aad u daalan yihiin niman dhalin kara ma ahan gool toos ah madaxaasay nasiib ku heleen adiga waxba kama soo warin ciyaarta 20 daqiiqo mareysay waa laga bareejiyay nimanka oo tabar saas islama hayaan adiga ciyaarta waxa socotaba li israfaadiye labada dhinacba waana Bournemouth oo aad u liidatay xilli ciyaareedkan waxa la ciyaarayaan Bournemouth way adkeed oo hadda korba 4 u dhiibtay xilli ciyaareed nimanka ka wareysaneed xilli ciyaareedkii Antonio Conte oo nimankan 4 ka dhaliyeen Man City ay 6 ka dhalisay marka horta nimanka galabta aad u dadaaleen markii laga bareejiyay goolka 82 daqiiqo bedelo macalinka sameeyay ninkan la yiraahdo Hakim Ziyech karoos soo helay Butshali lagu dhameystira ayadana oo lama dhihi kara ayadana waa gool oo saas weyn oo team weyn laga filayay inkastoo natiijada ay muhiim u ahayd galabta Allahu musta'an adiga Joe Felix mar lagu soo tuuray ayadana iyo Raheem Sterling gool iska caawiya ayagana ma garatay horta weerarkii uu ku soo bilaabay saddexdan weerar uu ku bedelay ka saameyn badnaay si markii loo fiiriyo oo macalinka waxbuu ka bartay isla yahay bedeladiisa waayo Hakim Ziyech ciyaarta guusha uu ka qayb qaatay ninka horta bedeladu sameeyay uu ku faa'iiday aad iyo aad waliba dhihi karnaa sababtoo ah ninkii ahaa saddexdii nin uu ku soo bedelay saddexdii nin uu ku soo bilaabay waa Felix Sterling iyo ninkan kale oo la yiraahdo Hakim Ziyech saddexdoodaba guusha way ka qayb qaateen labadii gool ugu dambeysay oo guusha sababtay sababtoo ah Hakim Ziyech gool uu caawiyay Sterling gool uu caawiyay Felixna wuu dhaliyay 3 iyo 1 niman ku badiyeen horta wax looga bari jira maahan 3 iyo 1 laakiin ma sii joogi doonaan ma soo lumayaan taas ilaah ma garatay nimanka horta 3 kulan u dambeysana 3 kulan waalan waaye waxa u harsan Man City, Man United iyo Newcastle 3 lugu ugu dambeysay la ciyaarayaan ma garatay Chelsea hadda halkaas uga baxno Man City kalna horta Man City falqaynsaas weyn uma baahna waa team laga wada dhargsan awoodooda ma garatay niman aad iyo aad u awood badan waaye waa niman sanadkan aba dhihi karnaa nimanka Champions ayaga iskala ayadu wali gaarin ma garatay habeen dambana Real horta lagu kala baxayo laba calis ma weydiinayso nimankan awoodooda zaid waaye ma garatay oo 10 ka qaateen lugtii hore la reebay oo Real Madrid ay gaaday nimankan way gaadaa dhihi karnaa ma garatay Pep Guardiola isqalday nimanka xilli dambe iska aaminay oo bedelay oo iska sameystay ma garatay marka horta nimanka Gundogan laba gool u dhaliyay hala mar dambe laga daba keenay 2-1 ku badiyeen nimankan haday badiyaan 3 ciyaar soo socota horta horyaalkan waa u dabaaldegin ayaga iskale ma garatay Arsenal sida muuqato horyaalka horta saan ku daayay oo Man City waa team aad iyo aad u awood badan mar haday Janiskan kale kugu helaan kuma cafinayaan hadda waxa leenahay hambal yaa leenahay rekoorkii Manchester United ee dhoori jirtay waajibiyeen dhihi karnaa sababtoo ah nimankan waa iska sii cadaha warkooda waajibiyeen si dhihi karnaa ma garatay waayo waa team la isku haleyn karo team awood badan waay team ku ceebeenayo ma aha nimankan ma garatay
marka waajibi inaan dhihi karnaa rikoorkaas sababtoo ah waxa ku cadeynayo awoodooda. Manchester United haddii dhihi jirtay horyaalkan 3 sano xiriir kaligeeya qaaday waliba loo maray sameeyay Manchester United marka markoodii koowaad waa kana horta saana ku sameeyna dhihi karnaa hambaliyo. Arsenalne waxaan leenahay sanadka dambe isku dayga waa muhiim ma garatay inkastoo sanadka dambe cabsi taabaasha oo tiiman badan oo hadda hurda ee soo kici doonaan saas leenahay sida Chelsea oo kale oo soo wadata ninkan la yiraahdo macallin fiican iyo waxyaabo badan keenayso asxaabay waxaa leenahay Arsenal horta fursadan waa dhaaftay ciyaareedka dambena calafkeeda cunay ma fahantay yaa maadaama uu leenahay hadda kan uu ka adkaan doonaa ciyaareedka dambe inuu waxa laga yaabaa Chelsea oo kale oo aad suuqa qarash u gelinaysa nimanka Newcastle oo waali noqday waaba kaalinta saddexaad hadda ku jiraan nimanka Newcastle ahaa championka u socdaan halka Liverpool ay kaalinta shanaad fadhiso wallahi waa arin laga yaaban yahay ma garatay marka Liverpool oo laftirkeeda soo adkeen doonto sida la qiyaasayo iyo tiimkii hore u kacsanaa Manchester United laftirkeeda oo ka muuqdo karti badan ay ka muuqato ma garatay marka xalaadka dambana waa wallahi waa nin walba calafkiisa cunaa leenahay peace and love asxaabi hadda raacino ciyaartii Liverpool hadda soo dhamaatay hali eberkii ku dhamaatay sida in soo sheegay oo goolkii Salah oo Anfield ku dhaliyay 100 gool oo taariikh sameeyay ahayd Liverpool oo kulankeedii lixaad ee Premier League xiriira badisay nimanka kaalintii afraad ay u soo dhawaadeen ma garatay marka waa kaas hadii nimankan marka la rabaana isleeyahay inay championka si luuq haddana ku imaadaan hadda ka hor ninkii Alisson xilli dambe madax dhag ugu sii ma fahantay marka nimanka waa khatar badan yihiin horta ma fahantay macallin waalna wata nin kolob lahaa nimankaas haysta marka waa kaas hadii waxaan leeyahay nabadgelyo intaas ay rabay inaan ka dabageeyo maca salaama aan leeyahay peace and love